kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid ah ciidamadii beledweyne ku gadooday oo xal laga gaaray safarada Mareykanka ee Kabul oo degniin culus soo saartay laba burcadaha oo lagu dilay Kisumu daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan kulamo saacado badan qaatay oo dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Ugaas Xasan Ugaas Roble odayaasha dhaqanka degmada Beledweyne ayaa lagu guuleystay in xal looga gaaro ciidamadii ka gadooday in madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaawe uu tago magaalada Beledweyne kulamadan oo uu hogaaminayay Ugaas Xasan Ugaas Roble ayaa waxa lagu heshiiyay in laga qaado ciidamadii qabsaday xarunta maamulka iyo xirada geeska shanaad ee militariga Soomaaliya ee lama galay wararka kulamadaasi laga helay ayaa in ciidamada gadooday ee xirooyinka la wareegay ay soo bandhigeen shuruudo ay uga baxayaan xarunta kuwaasi oo ay ka mid yihiin kow in aan la raacinin wax dalac ah lana bartilmaameedsanin laguna soo oogin kiisas maxkamadeed labo in la fasaxo mushaaroodkoodii horey looga xayiray iyo darajooyinkii laga musuqmaasuqeeyay sida ay sheegeen saddex in dib loogu celiyay xilal ay ka soo hayeen ciidamada kala duwan oo si sharci darro ah looga qaaday sida ay hadalka u dhigeen wararka ayaa waxay intaasi ku dareen shuruudahaasi oo ay aqbaleen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Mukhtaar Xasan Afrax iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle waxaana la faray ciidamada ku sugan lama galay iyo xarunta maamulka gobolka inay dib ugu laabtaan fariisimihii ay ka tirsanayeen ee xirooyinka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27 maanta gilinkii hore ayaa waxaa la filayay in ciidamada dib ugu laabtaan xirooyinka isla markaana gudoomiyaha gobolka duqa magaalada iyo xafiisyadii kale ee shaqadoodu istaagtay ayaa dib howlahoodii u bilaabeen maadaama shaqooyinkooda ay hakad galeen maalmihii la soo dhaafay taliyii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulooshe ayaa sheegay in aanan wali laga heshiinin in madaxweynaha Hirshabelle uu tago Beledweyne balse kaliya laga heshiiyay gudoodkii ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa Beledweyne maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta maamulka gobolka Hiiraan ka taagnaa xiisad ka dhalatay safar la sheegay inuu madaxweynaha maamulka Hirshabelle ku tagi lahaa magaaladaasi Beledweyne walow ugu dambeyntii uu baaqday safarkiisa dhowr saacadood kadib markii madaxweyne John Biden uu sheegay in weerar kale lagu soo qaadi karo garoonka diyaaradaha ee Kabul ayuu Biden ay u badan tahay inay dhacaan 4 ilaa iyo 36 saacadood ay soo socoto ayaa safaarada Mareykanka ee Kabul ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka inay ka baxaan garoonka diyaaradaha digniintan amni oo ay ku boorinaysay dadka Mareykanka inay ka fogaadaan agagaarka garoonka diyaaradaha waxayna safaaradu sheegtay in si degdeg ah looga baxo garoonka agagaarka gaar ahaan albaabka koonfureed agagaarka wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha iyo irida kaalinta shidaalka ee u dhow Banjashir ee dhaca waqooyiga galbeed Biden ayaa bayaan uu sabtidii soo saaray kaga digay weeraro ay suuragal tahay in lagu soo qaado garoonka Hamid Karzai ee magaalada Kabul xilli ay gabaabsi maraysa ka bixitaanka Mareykanka iyo xulufadiisa iyo dadgureynta muwaadiniinta iyo dadka reer Afghanistan ee ka baxsanaya xukuumadda Taliban digniinta ayaa imaanaysa 2 maalmood kadib qarax ismiidaamin ah ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Kabul halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 170 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Mareykan ah Biden wuxuu sheegay inuu taliyayaasha ciidamada Mareykanka ku amray ilaalinta askarta Mareykanka ee ku sugan garoonka caalamiga ah ee Hamid Karzai maadaama dadgureyntii dadkii tirada badnaa ay dhamaatay ku dhawaad isla markaana ciidamada Mareykanka ka baxayaan garoonka qiyaastii 200 oo qof ayaa laga dadgureeyay Kabul 24 saac ee la soo dhaafay sida laga soo xigtay aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in tan iyo 14 August in Mareykanka uu dadgureeyay ama gacan ka geystay dadguroontooda qiyaastii 113,500 oo qof tan iyo dhamaadkii bishii July Mareykanka ayaa dib u dejin u sameeyay 119,000 oo qof haatan saraakiisha ammaanka ee dalka Kenya ayaa 2 qof oo burcad weesan ah ku dilay ismaamulka Kisumu shakhsiyaadkan la dilay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxaha burcad ah oo dhac u geysta dadka deegaanka saacadaha bandowga ee habeenkii waxaa sidoo kale baxsaday 13 kale oo burcad ah iyadoo qaar ka mid ah ay dhaawacyo soo gaareen taliyaha booliska ee bariga ismaamulka Kisumu James Musimi ayaa warbaahinta u sheegay in burcad looga shaksan yahay inay ka dambeeyeen dhac laga geystay qaybo
ka mid ah dowlad deegaanadaasi. burcadan ayaa adeegsata qalab ay guryaha la degan yahay ku jebiyaan si ay u xadaan waxyaabaha qiimaha leh oo qaaliga ah. Master Musimi ayaa sheegay in booliisku ay tilaabo qaadeen kadib markii la arkay tiro dhalinyaro ah oo safrina alaabo lagu tuhunsan yahay in la soo xaday. waxa uu xusay weeraro gaadma ah inay ku qaadeen burcada oo ka kooban ilaa 15 dhalinyaro ah oo ay da'doodu ka hooseyso 25 sano. waxa uu intaasi ku daray in dhalinyarada ay ku hubeysan yihiin baangado halka qaarkood ay qoryo haastaan. tugada ayaa markii ay arkeen inay si kadis ah kula kulmeen saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay door bideen inay dagaal la galaan booliiska. dhanka kale taliyaha booliiska ayaa uga digay dhalinyarada inay ku kacaan falal dambiyeed noocan oo kale ah. wuxuu wacad ku maray inaysan nasan doonin ilaa ay gacanta kusoo dhigayaan shakhsiyaadka dhaca geysta. daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dal iyo daafaha caalamka aan idinkaga hanay. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo cabdinajiib cabdulaahi najiib akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.